بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إلaahay subxaana wa tacaala makhluuqa markuu abuuray adduunkana la keenay, khaasatan jinka iyo insiga wuxuu u diyaariyey laba maxal oo lagu kala abaalmariyo. wuxuu u diyaariyey daar loogu talagalay dadka muttaqiintoo hadday alla ateecaan oo ay diinta ku socdaan ee awaamirta ilaah fuliyaan loogu naxariista qiyaamaha, iyo daar labaad oo loogu magacaabo naar, taasoo ah meesha loogu talagalay cusaada iyo dadka awaamirta ilaah diida subxaana wa tacaala. walaalayaal, naartu waa daartii qisyiga iyo hoogga, waa daartii nadaamada iyo xasrada iyo shalayda, waa daartii dulliga iyo dhibaatada, waa daartii oohinta iyo rafaadka iyo dhibka, waa daar aan lagu farxin, waa daar laga qowmameeya marka la galo. ilaahay asagoo tilmaamaya inay jirto ayuu yidhi: annaaru yucraduuna calayha. fircoon markuu amarka ilaahay diiday oo taacadii ilaahay qaada lagu kari waayey, markuu dhintay naar baa loo bandhigi dusheeda. annaaru yucraduuna calayha guduwan wacashiya wa yowma taquumu asaaca. maalinta ay saacadda qiyaamo qumaysay qiyaamo la gaarana waxaa loo odhanayaa: udkhuluu aala fircawn, geliya fircoon aalkiisa ashadd alcadaab, cadaabkan ugu adag buu yidhi ilaah subxaanahu wa tacaala. walaalayaal, maanta waa daartii camalka, waa daartii cibaadada, waa daartii taacada, waa daartii khayrka iyo wanaagga la samayn lahaa, waa daartii sahayda laga qaadan lahaa. qiyaama haddii la taga imaa waad istariixaysaa, imaa waad cadaabsanaanaysaa. labadaa mid, qofka inuu galo cadaab uu ku waaro, qofku inuu ilaahay naxariis iyo wanaag siiyo subxaanahu wa tacaala. ahlunaar ilaahay didkooda waa noo tilmaamay. qof walba oo sifaadka ahlunaarka laga hela ilaahay agtiisa wanaag uma yaalo. qof allaala qofkii jidka ahlunaarka mara masiirkiisii hoyadkiisii meeshu ugu dambeeya waa cadaab. sidaa darteed ayaa loo baahan yahay maanta inta adduunka joogno inaan cadaabkaa iska ilaalino. ilaahay rasuulkiisa sala allahu calayhi wasalam, saxaabi ayaa yidhi: maalin baan la fadhiisanay rasuulka, annagoo fadhina ayaan waxaan maqalnay wejba iyo dhawaaq, dhagax inta kor laga soo tuuray dhulka ku dhacay dhawaaqiisa oo kale. mar allaala markii aan maqalnay ayaan rasuulka weyddiinay, markaasuu noo yidhi: ma maqasheen? waa dhagax laga soo tuuray fiir jahannama afkeeda. afka jahannamo ayaa inta lagu soo tuuray 70 sanoy maanta 70kii ugu eg tahay. ilaa wuu soo socday, ilaa maanta ayuu soo gaaray buu yidhi rasuulka sala allahu calayhi wasalam. wallaahi ayaan ku dhaartee waa la buuxin doonaa. dhagax baa laga soo tuuray walaalayaal afka jahannamo. waa soo socday ilaa 70 sano.
mar allaala markii 70kii sano dhammaaday ayuu salkii soo gaaray. saxaabada ilaahay wuu maqalsiiyey iyo nebigaba dhawaaqii salka uu ku soo dhacay. wallaahi ayaan ku dhaartee waa la buuxin buu yidhi nebiga. say xaaladdu noqonaysaa walaalayaal? xaggee ku jirnaa? ma meesha jahannamana la ku buuxinaayaa? ma waxaan ku jirnaa dadka loo jannaynayaa? ma waxaan ku jirnaa dadka ilaahay subxaanahu wa tacaala agtiisa khayrkii wanaagga ka gaarayaa? lama yaqaano. sidaa darteed waa inaan dadaalnaa, ilaahay ka baqnaa, taacada alla ku soconaa, cayaarta maanta ku jira layska daayaa. ilaahay agtiisa khayr fara badan baa la gaarayaa. war qiyaamaha marka la taga ahlu naarka waa la dul istaajinayaa naarta. ilaahay wuxuu yidhi walow taraa id wuqifuu cala annaar. war ka warrama maalinta ahlu naarka la soo aruuriyo, rag iyo dumarkoodii, jinni iyo insigoodii naarta korkeeda la istaajiyo. wa qaaluu yaa laytanaa, maxay dhahayaan? yaa laytanaa, shallaytadayniyaay nuraddu walaa nukadibu biaayaati rabbina. nala celiyaa maanta adduunka. wallaahi aayaad ilaahay ma beeninayno. wallaahi ilaahay subxaanahu wa tacaala amarkiisaan raacaynaa, waan fulinaynaa, waan ku dadaalaynaa. yaa laytanaa, qiyaamaa la taagan yahay, lama jooga wakhtigeeda. jahannama korkeedaa la taagan yahay buu yidhi ilaah subxaanahu wa tacaala. waa la tusiyey, waa loo jeedaa, waxay ku arkayaan il yaqiin ah. walow taraa id wuqifuu cala annaar faqaaluu yaa laytanaa nuraddu walaa nukadibu biaayaati rabbina. halaagayniyo dib maana loo celiyo, maa adduunkana la geeyo, maan xaafadihii deganeenna la geeyo, oo ilaahay aayaadkiisa aanaan beeninin oo aan rumayno. nuraddu walaa nukadibu biaayaati rabbina. maxay tamaninayaan? wanakuuna min almu'miniin, oo mu'miniinta aan ka mid noqono. bal badaa lahum, iska daa buu yidhi ilaahay, waxaa u daahiray, waxay arkeen, waxaa u soo muuqday. bal badaa lahum maa kaanuu yukhfuuna min qabl, wixii horay uga maqnaa oo uga qarsoonaa. walow rudduu lacaaduu limaa nuhuu canhu. xataa haddii la soo celiyo buu yidhi ilaahay waa beentood. waxay ku laaban lahaayeen xumaantii, waxay ku laaban lahaayeen heesii dhegaysigiisa, waxay ku laaban lahaayeen taariku salaadnimada, waxay ku laaban lahaayeen fisqigii iyo xumaanta, waxay ku laaban lahaayeen wixii ilaahay u diiday. xataa jahannamaa la soo tusiyey, way arkeen, waxay yidhaahdeen halaag ayaa noo sugnaaday, rabbow gadaal noo celi, waan ku rumaynaynaa, aayadahaadana waa qaadanaynaa. markaasuu ilaah yidhi bal badaa lahum maa kaanuu yukhfuuna min qabl walow rudduu lacaaduu limaa nuhuu canhu. wixii laga reebay ku laaban lahaayeen. wa innahum lakaadibuun, waa beenaalayaal buu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala. ahlu naarka dulli baa ku dhacay, ahlu naarka cadaab iyo dhibaatay ku sugan yihiin. rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam, warhooy ayuha annaas, yaa ayuha annaas, abkuu, wardadow ooya. haddaadan ooyin xataa haddaad cadaab maqashaan fatabaakuu, is ooyiya buu yidhi nebiga sala allahu calayhi wasalam. waayo ahlu naarka way ooynayaan naarta dhexdeeda ilaa uu ka soo daato ilintooda, dhabannada iyo ildhaha hoostooda uu ku soo daato. ayadoo aad mooddo juduul, waxaad u malaysaa meel biyo mareen oo kale ah, ilaa ilinta ay ka go'do buu yidhi nebiga sala allahu calayhi wasalam. wax allaala wixii ilmo ahaa, wax allaala wixii ilin ahaa ee ku jirtay ilaa ay dhammaato, ilaa ay go'do ayuu rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam. ahlu naarku way ooyayaan cadaabka dhexdiisa, waxay ka soo daadanaya indhaha biyaha indhahooda ka soo qubta ilaa aad moodda waadi markaa soconaya. fayasiilu dam, dhiig baa ka soo daadanaya buu dhahay rasuulka sala allahu calayhi wasalam. ilintii markay dhammaata waxay ooynayaan waa dam, waxa ka soo daadanayo indhahooda ka soo baxaya waa dhiig buu yidhi rasuulka sala allahu calayhi wasalam. yursalu lbukaa, riwaayad kale, oohintaa lagu soo tuurayaa calaa ahli nnaar, way ooynayaan ilaa dumuucdu ay ka go'do. uma yabkuuna dam, dhiig ayay ooynayaan xataa ay dhiiggii uu noqdo wejiyaalkooda uu ku soo daato, oo xataa badnaanta uu ka qaba haddii sufuno iyo doomo la keena way ku socon lahaayeen buu yidhi sala allahu calayhi wasalam. falyadxakuu qaliilan waliyabkuu kaiiran
jazaa'an bima kaanuu yaksibuun in yar ayay qoslayaan buu yidhi ilaahay subxaana wa tacaala waa inta adduunka la joogo way oyn doonaan oo waxay oynayaan in fara badan waa inta naarta ay ku jiraan ma kala go'ayso kala go' ma laha maca daalika ayay ahlu naarku cadaaban yihiin walaalayaal qof kastow iska badbaadi inaad adiga ka mid noqoto waxaa lagu dadaalaa camalka saalixa ah qiyaamaha marka la taga nebi aadam buu ilaahay u wacayaa subxaana wa tacaala aadamow ka soo saar baa la leeyahay durriyadaada inta bictada loogu talagalay naarta imisaa naarta la gelinayaa ka soo bixi carruurtaada ka soo bixi aadanaha in allaala inta carruurtaada ah intii loogu talagalay inay ahlu naar noqoto yaa rabbi wa kam ilaahayow meequu leeyahay kunkii kastaba 999 dhinacu bixi waa ahlu naar buu yidhi ilaahay subxaana wa tacaala hal baa soo haree daaya wa ahlu janno subxaanaka yaa ilaahay macaasida ma u jeedaan miyaa xumaanta badatay la arki maayo miya khayrka ilaahay laga ordaayo looma jeeda miya masaajidada faaruqaa la arki maayo miya goobaha cabayskaasay u buuxaan dadka loo jeeday maya sidaa darteed buu ilaahay yidhi kunkii kastaba aadamow 999 dhinacu bixi wa ahlu naar halka soo haraa janno loo dirayaa wadaalika yowm waa maalin buu yidhi ilaahay yajcalu lwildaana shiiba ciyaalkay ciroolayaal noqonayaan maalin kunkii qofoodba hal qof janno uu ka galay walaalayaal kun qofood oo kasta oo taagan maalinta hal qofood badbaaday mataqaanaa firdowso aaday inta kale jahannamo ayagoo la jiidaya loo sii waday xaalku ma sahlana waa maalinta ciyaalkay ciroolayaal noqonayaan waa maalinta ciyaalka dhibaatada iyo mashaakilkay asiibayso sidaa markay dhacday saxaabadii waxay sameeyeen ayaa la yidhi oo qabarkaas soo gaaray qatow ru'uusahum madaxyaalkooday dabooleen camaamadihii ay haysteen bay madaxa ku dabooleen walahum khuniin ayagoo hooska oynaya buu yidhi xadiidka khuniinka waa oohinta qofka celinaya sawdka sanka ka soo baxa ayagoo sidaa ah ileen kun qofoodba hal baa janno galay war kun qofood 999 baa naar aaday saxaabadii way ooyeen intaa wixii ka dambeeya waxay dhaheen mata najaad yaa rasuul allah goormeen badbaadaynaa yaa badbaaday yaa janno aadaya oo jannada gelaya rasuulkii ilaahayow intaa ka bacdi ayuu nebiga u bishaareeyey wuxuu yidhi abshiruu war bishaaraysta war waxaad ku bishaaraysataan khayr iyo wanaag mucdamkooda iyo inta badan waa ya'juuj iyo ma'juuj buu yidhi sala allahu calayhi wasalam bacdamay xaaladdu sidaa tahay qofka muslimka u aamin ma tihid war qofka iimaanka lahow mar walba dadaal war qofka iimaanka lahow rabbigaa ka cabsa subxaanahu wa tacaala maalinta qiyaamo marka la taga dadka waa la soo bixinayaa qubuurta jannadu waan soo tilmaannay yowma naxsharu lmuttaqiina ila araxmaani wafdan wanasuuqu lmujrimiina ilaa jahannama wirdan qabrigaba marka laga soo bixiyo ayagoo wirdi ahoo ooman ayagoo xirxiran oo la jiidaayo ayagoo dhibaataysan ayaa dhanka jahannama loo kaxeeyaa buu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala haddaba xaaladdu waa sidaa naartu waa meel dhibaato badan naartu waa meel aad iyo aad u murugyo badan rasuulka sala allahu calayhi wasalam baa kusuufu istaagay maalin bay qoraxdii madoobaatay salaada ayuu mixraabka galay inuu ummadda dujiyo mar allaala markuu salaada galay ayuu horay u baxay sala allahu calayhi wasalam saxaabadii way la hore dhaqaaqeen cabbaar kadib ayuu gadaal u soo gurtay rasuulka sala allahu calayhi wasalam dib bay u soo noqdeen ayagiina rasuulka markuu salaadii ka baxay ayay weyddiiyeen sababta waan ku aragnay maxay tahay hor u socodkaagii iyo gadaal u soo socodkaagii rasuulku wuxuu yidhi markaadii aragteen in allaala inaan horay u soconayo jannadii baa horteeda la soo dhigay buu yidhi nebiga sala allahu calayhi wasalam sida xaa'idkan iyo derbigan oo kalea loo hor keenay ilaahay waa kari karaa rasuulka inuu jannada hortiisa keeno subxaanahu wa tacaala markaadii aragteen inaan horay u dhaqaaqayo laamaha jannadii miraheeda ka mid ah ayaan damcay inaan soo qaada buu yidhi nebiga sala allahu calayhi wasalam wallaahi hadday ii suurogeli lahayd oo adduunka aan keeni lahaa ilaa qiyaamo ay ka dhacdo waad cuni lahaydeen mana dhammaan lahayn buu yidhi rasuulka sala allahu calayhi wasalam waa meeshana loogugu talagalay inaan u shaqaysano waa hal laamaheeda ka mid ah waxa adduunka jooga oo dhan way cuni lahaayeen mana dhammaan lahayn raashinnaa go'ay iyo dhibaataa jirta iyo biil baa la waayey iyo mashaakil baa dhacay iyo saliid baa la waayey iyo ma jirteena ayadaa idinku filnaan lahayd ilaa maalinta qiyaamo ka warrama qofku ilaahay dhex geliya subxaanahu wa tacaala
markaadii aragteen inaan gadaal u soo noqonayo dib u soo guranayo buu yidhi rasuulka sala allahu calayhi wasalam. waxaa horteeda la soo dhigay naartii buu yidhi rasuulka sala allahu calayhi wasalam. meel mugdi badan oo madow bay ahayd, meel aad u ololayso holxiisa ayay ahayd. rasuulka gadaal buu u soo noqday asagoo dhahaya acuudu billaahi min annaar, naartaan ilaahay ka magan galay. gadaal buu u soo socdaa sala allahu calayhi wasalam. meesha iska ilaaliya buu yidhi, war ka gabadoo alla cabsidiisa ku dadaala. wax kale haddaad weysaan fa bikalimati طayib, war hadal fiican xataa ilaahay u hormarsada, aad naarta uga badbaadiine. haddaad weysaan xataa sadaqa ku dadaala, walow bishiqi tamr, jeex timireed baa ahaadee uga gabada naarta. acuudu billaahi min annaar, acuudu billaahi min annaar. gadaal buu u soo socdaa, naartuu ilaahay ka magangelayaa. ilaahay baa tilmaamay subxaanahu wa tacaala, ina allaha lacana alkaafiriina waacadda lahum saciira. ilaahay kaafiriinta waa lacnaday, nacalad ayuu dusha ka saaray. ilaahay kaafiriinta naxariistiisa ayuu ka dhaqaajiyey. ina allaha lacana alkaafiriina waacadda lahum saciira khaalidiina fiiha abadan. way ku dhex waarayaan buu yidhi ilaah subxaanahu wa tacaala. naartaa markay galaan way ku dhex waarayaan khaalidiina fiiha abadan laa yajiduuna waliyan walaa nasiira. wax u soo ciidamiya, wax u soo gurmada, wax u gargaaraa ma jira. waa goormee? yowma tuqallabu wujuuhuhum fi nnaar, maalin wejiyaalkooda naarta lagu gedgedinaya buu yidhi ilaah subxaanahu wa tacaala. ninka maqaayadda jooga hilibka marka uu dubayo marna hoos buu geliyaa, marna saasuu u rogaa, mar saasuu u rogaa ayadoo shabaqii birta uu ku jiro, digaagadii ama hilibkii saasuu haddana u gediyaa, saasuu markaa u gedinayaa. wallaahi wejiyaalkeennaa lagu gedgedinayaa walaalayaal, haddaan diinta ilaahay ka leexano. maalin waayo lagu gedgedinayo wejiyaalkooda fi nnaar, yaquuluuna yaa laytana aطacna allah wa aطacna arasuul. halaageeniyow ilaahay maxaan u ateeci weynay leeyihiin, rasuulka maxaan u ateeci weyna. labadaasay codsanayaan. yaa laytana aطacna allah wa aطacna arasuul. وqaaluu rabbanaa inaa aطacnaa saadatanaa, odayaal baan raacniy wa kubaraa'anaa, dad noo waaweynaa. maxay sameeyeen? hal maalinna ma dhihin salaada tukada, qaaraan bay naga qaadeen. hal maalinna ma dhihin ilaahay ka cabsada, dhibaatayna gaarsiiyeen. rabbanaa inaa aطacnaa saadatanaa wa kubaraa'anaa faadalluuna الsabiila, jidkii toosnaa bay naga dhumiyeen. rabbanaa aatihim ضicfayni min alcadaab, ilaahu cadaabka u laalaab ayaka, ilaahu ayagaa meeshana keenay u laalaab. inta annaga aad dusha naga saartay in debel ah oo ka laalaabsan ilaahayow saar. aatihim ضicfayni min alcadaab walcanhum lacnan kabiira, ilaahayow lacanad dusha ka saar. wakhtigeeda maa la joogaa, naarta lagula jiraa, waa laiskula jiraa walaalayaal. qofka muslimka waa inuu dadaalo, waa inuu ogaadou ka cabsadaa naarta. fain lam tafcaluu walan tafcaluu faاtaquu الnaara alatii, war qur'aankan oo kale haddaad keeni weysaan maba keeni kartaane, naar ka cabsada buu yidhi ilaahay subxaanaه wa tacaala. war naartaa ka cabsada, war naartaa lagu hurinaya dadka iyo dhagxaanta. wallaahi wax kale ma loogu talagelin, waxaa loogu talagalay jasadkeenna haddii diinta lagu baabi'in waayo, waxaa loogu talagalay caqligeenna haddii diinta loo adeegsan waayo, waxaa loogu talagalay lugaheenna haddii qur'aanka iyo meesha lagu bartay masaajidada lagula socon waayo. sidaa darteed ayuu ilaahay tilmaamaya subxaanaه wa tacaala, qofka ahlu naarka ee naarta gala in ilaahay saa loogu gedgedinayo tilmaamaya wejigiisa. waa lagu dubayaa, waa lagu gedgadoominayaa. aayad kale ilaahay wuxuu ku tilmaamay fakubkibuu fiiha hum walghaawuun, ayaga iyo intii dhumayba waa lagu afgembinayaa. naarta marka la gelinayo si istariixa socda ma jirto. naarta marka qofka la gelinayo afgembi baa loo seexinayaa. fakubkibuu fiiha hum walghaawuun وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون. إبليس ينتي راعدي دمانتو وحي أرانيان أيقو دودايا تالله إن كنا لفي ضلال مبين. إلهي بانكو دارني باضي بانكو جرني إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمين. نمر من إلا مجرمين ما أنا وحكالي. maanta nooma sugnaanin sidiiq iyo saaxiib iyo xamiim noo murga. maanta wax noo qabanayaa ma jiro. ee falow hadday noo sugnaan lahayd oo ay noo sugnaan lahayd hal mar oo karasho ah oo noqosho ah, mu'miniintaan ka mid noqon lahayn. inna fii daalika la aaya, aayad baa ku sugana walaalayaal, ku cibro qaata.
wallaahi naartaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu diyaariyey. naartaa ilaahay qofuu ku dulminayaa male. qof kastaa maanta wax waa loo caddeeyo, waa loo bayaaniyey. wax walbaa ilaahay khayrkiisii wanaaggiisii waa u sheegay. aan noqona dad caqligooda naarta uga fakada, aan noqona dad diinta inay raacaan, khayrka iyo wanaagga ku dadaalaan, ilaahay suu u badbaadiyey subxaanahu wa tacaala. naarta saasaa loogu afgembinayaa. ilaahay qur'aankiisa wuxuu ku tilmaamayaa in lagu tuuraayo. ahlu naarka saasuu u taagan yahay. markaa ka bacdi baa qadfi lagu samaynaa, inta saa loo qabtaa lagu tuuraa. yowma yudacuuna ilaa naari jahannama dacaa. in tartiib loo geliye ma jirtee waa lagu qadfayaa buu yidhi ilaa subxaanahu wa tacaala. waa la qabanaa, waa lagu tuurayaa. yowma yudacuuna ilaa naari jahannama dacaa. ilaahay muxuu tilmaamay suuradaha bilowgeeda markuu ku dhaartay jabalu tuur wa kitaabin masطuur fii raqin manshuur wاlbayt اlmacmuur wالsaqfi اlmarfuuc wاlbaxri اlmasjuur ina cadaaba rabbika lawaaqic. cadaabka ilaahay waa dhacayaa, maa lahu min daafic. wax difaacayaa ma jiro. afar baa tilmaanta cumar inuu faras saarnaa, ibnu khitaab ama ximaar. wuu maqlay suuraddaasoo la akrinaya watuur. dhaar bay ku bilaabanaysaa. ilaahayoo caadil ah, ilaahayoo awood leh, hadduu dhaarta ma sahlana. watuuri wa kitaabin masطuur. jabalu tuur iyo kitaab la sadareeyaan ku dhaartay buu yidhi ilaahay. fii raqin manshuur. waxaa lagu sadareeyey maqaar ama warqad la fidiyey. wuxuu ku dhaaranayaa ilaahay saqfigii beydkii macmuurka ahaa waa gurigii la camiray. wuxuu ku dhaartay ilaahay saqfigii la kor qaaday wasaqfi اlmarfuuc. intaasoo dhan markuu ilaahay ku dhaartay muxuu yidhi ina cadaaba rabbika, rabbiga cadaabkiisa lawaaqic, waa dhacayaa, maa lahu min daafic. wuu ka dhacay baa la yidhi radia allahu tacaala canhu. waa xakamayn waayey, faraskii waa ku fadhin waaye. cadaab ilaahayaa dhacaya, ma sahlana. cadaab ilaahay waaqic waaye, wax fudud ma aha. cadaab ilaahay markuu maqlay lawaaqic, maa lahu min daafic. wax difaacayo soo gurmanaya oo ciidana ama tol ah ama qabiil ah ma jiro. intaa markii la yidhi cumar waa ka dhacay baa la yidhi faraska. saasaa loo qaadahayay, gurigiisaa la geeyey. dhowr maalmood baa lagu soo booqanaya sidii qof xanuunsan oo jiran oo kale. ina cadaaba rabbika lawaaqic, maa lahu min daafic. wax difaacayaa ma jiro. meeshii noocaaseed buu ilaahay tilmaamay in qofka markaa lagu tuuraayo. bacdamay sidaa tahay walaalayaal, aan aad iyo aad ilaahay uga cabsano, aan khayrkii wanaagga ku dadaalna. cadaabka kaasaa looga badbaadaa. cadaabka ilaahay taasaa markaa looga fakanayaa. waa inaan jidaalka iyo dooda iyo muranka diinta alle lagu doodayo iska dayno. sababtu waxay tahay arrimaha naarta lagu galay ka mid tahay. alam tara ila aladiina yujaadiluuna fii aayaati illaah. ka waran buu yidhi ilaahay kuwa aayaadka ilaahay ku murmaaya. yujaadiluuna fii aayaati illaah annaa yusrafuun. yay yihiin aladiina kadabuu bilkitaab. waa kuwii kitaabka beeniyey. iyo wa bimaa arsalnaa bihi rusulanaa. waxaan rususheennii la soo dirnay. fasawfa yaclamuun. waxay doonaan ha sameeyaana buu yidhi ilaahay, gadaal dambay laakiin ka ogaan doonaan. fasawfa yaclamuun. goormay ogaanayaan؟ إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله. maalintaasi ogaanayaan buu yidhi ilaahay. waa maalintee؟ إذ الأغلال في أعناaqihim. أغlaasha waa xargaha waaweynee ahlu naarka loogu talagalay ayaa qooraha loogu xirayaa buu yidhi ilaahay. iyo والسalaasil silsiladooyin yusxabuun. markaasaa lagu jiidayaa fi الnaar, naarta dhexdeeda. intaa ka bacdi waa lagu hurinayaa buu yidhi ilaa subxaanaه wa tacaala. yusjaruun. maxaa loo dhahayaa? uma qiila lahum ayna maa kuntum. aawe waxaad ilaahay ugu shariig yeeli jirteen. markii salaada laydinkugu waco waxaad sugi jirteen, meelahaasaad taagnaadeen, fisqi baad ku jirteen, waxaad ku jirteen kalaad, waxyaaba noocaas oo kale ah. aaway maxay idiin anficeen? aaway maxay idiin tareen? qaaluu dalluu canna. way naga dhumeen bay leeyihiin. bal maba ahaynba kuwo ilaahay kayrkii wax caabudaa. saasaa loo iilay buu yidhi ilaa subxaanaه wa tacaala. maxaa loo odhanayaa? qiila dkhuluu abwaaba jahannama. gala waayahe albaabaha jahannamada. xaaladdu saas waaye walaalayaal. naartu waa naar, waa meel dhib badan, waa daar dulli ah, waa daar aad iyo aad u dhib badan, waa daar ilaahay uu ugu talagalay qofkii la celin waayo oo diin allay celin weyso oo adduunka ku kibra oo adduunka ku xadgudba oo awaamir ilaahay ka leexday inay dejiso lagu celiyo lagu ciqaabo. waa meeluu ilaahay ugu talagalay subxaanaه wa tacaala. sidaa darteed waxaa mar walba wanaagsan oo mar walba nala gudboon waxay tahay inaan aad u dadaalno,
inaan khayrka badsano, intaan adduunka joogno camalka ahlu naarka inaan iska ilaalino. waa laysi soo aruurinayaa maalinta qiyaamo. wa yowma yuxsharu acdaa'u llaahi ila annaar. xus buu yidhi ilaahay maalin cadowyaalka ilaahay yaa cadow ilaahay ah. cadow ilaahay ma taqaanaa? waa qofka amar ilaahay diida subxaana wa tacaala, cadowgiisii baa tahay. ilaahay wuxuu kuu diray ayaad samayn weysay, cadowgiisii baa tahay. ilaahay amarkuu kuu diraad ka leexatay, cadowgiisii baa tahay. maalin inta la soo aruuriyo ila annaari fahum yuusacuun, waa la horayaa. yuusaca waxaa loola jeedaa xoolaha marka ay darka u socdaan oo ay aad u fara badan yihiin way kala go'go'aan. markaasaa kuwa hore la istaajiyaa sida kuwa dambay u soo gaaraan, waa laysku istaajiyaa. maalin saasoo kale la yeelaayo oo la dhex yeelaya bani aadamkii oo ilaahay diintiisii diiday, ayagoo markaa laysku horaya xataa idaa maa jaa'uuhaa, markii meesha ay yimaadaan, shahida calayhim samcuhum wa absaaruhum wa juluuduhum bima kaanuu yacmaluun. waxaa ku markhaati kacaya indhahooda iyo dhagahooda iyo maqaarkooda buu yidhi ilah subxaana wa tacaala. bima kaanuu yacmaluun, maxay odhanayaan? wa qaaluu lijuluudihim lima shahidtum calayna, maxaad noogu markhaati kacdeen? war waa isla anagii, maqaarkii anigu igu yaalaa, war adigiina waa lagu cadaabayaa. wa qaaluu lijuluudihim lima shahidtum calayna, qaaluu antaqana allah, ilaahay baa naga hadal siiyey leeyihiin. waxaan waa wax ilaahay wata subxaana wa tacaala. annagu iskama hadlin, laakiin antaqana allah aladii antaqa kulla shay, waa ilaaha wax kasta ka hadal siiye subxaana wa tacaala. ilaahaasaa annaga naga dhawaajiyey, ilaahaasaa halkaa mataqaanaa hadalka naga keenay. xaaladdu saasay u jirtaa. wamaa kuntum tastatiruuna, waad ahaan weydeen kuwa iska qariya inay idinku markhaati kacaan lugihiinna iyo gacmihiinna iyo maqaarkiina. xumaan baad markaas samayseen, waayo ilaahay subxaanahu wa tacaala amarkii aad diiddeen iyo wixii aad samayseen waa laydinkugu markhaati kacay. maantana cadaabkaad gelaysaan. ee fa in yasbiruu fannaaru mahwan lahum, hadday sabraan naartay hooyanayaan buu yidhi ilaah subxaana wa tacaala. hadday sabraan ay aamusaan oo ay dhahaan waa isaga adkaysanaynaa cadaabka, oo ay dhahaan naarta waa isaga jiraynaa, ay aamusaan ay ku sabraan, fannaaru mahwan lahum, aydaa hooyad u ah. wain yastactibuu, hadday qayliyaan, ay mataqaana buuqaan, oy ooyaan, oy wax kasta sameeyaana wamaa hum min almuctabiin, laga aqbali maayo buu dhahay ilaah subxaana wa tacaala. aamusnaan ma jirto, lama aamusi kara. sababtu maxay tahay? lahum min jahannama mihaad, gogoshu waa jahannamo buu yidhi ilaahay. meesha lagu fadhiyaba waa dab, meesha la seexanayaba waa dab buu leeyahy ilah subxaana wa tacaala. meesha markaad istaagto madaxaagu qabanayo waa dab ololaaya, dhinacyaalkaagii hareerahaada waa wada dab. saa darteed meel lagu sabri karoo la aamusi kara ma aha. lahum min jahannama mihaadun wa min fawqihim gaash, korna waxaa ka daboolan olol buu yidhi ilah subxaana wa tacaala. kor hadday fiiriyaan waa naar, dhinac hadday fiiriyaan waa cadaab, dhinac hadday fiiriyaan waa naar, gogoshii waa naar holcaysaa. see loo aamusayaa? say dadka ahlu naarka u aamusayaan? aamusnaan ma jiro. wahum yastariquuna fiiha, way ku dhex qaylinayaan buu yidhi ilah subxaana wa tacaala. kii lagu tuuraba wuu qaylin, kii lagu tuura way ku dhex qaylinayaan. wahum yastariquuna fiiha rabbanaa akhrijna nacmal saalixan, alloo naga bixi camal fiicanaan soo qabanaynaa. dhihi maayaan adduun baan meel soo dhiganaynaa, dhihi maayaan haddaan waxyaabo kala samaysanaynaa, dhihi maayaan bengi baan wax dhiganaynaa. ilaahu hal mar ma naga bixin kartaa bay leeyihiin. nacmal saalixan غayr اladii kunaa nacmal, way qirayaan camal xun inay qabteen, way qirayaan inay camal fiican samaynin, way qirayaan ahlu naarka. markaasay leeyihiin rabbow naga bixi nacmal saalixan غayra اladii kunaa nacmal, kii aan camal qabanay waxaan ahayn. maxaa loogu jawaabayaa? abalam nucamirkum, miyaanan idin cimri siinin? maa yatadakaru fiihi man tadakkar, qof waana qaadanaya intuu waana qaato. wallaahi intaan hadda adduunka joognay waa in nagu filan, waa in aan wax ku qaadan karno, waa inaan ilaahay ku caabudi karno, waa in ilaahay subxaana wa tacaala aan ku xasuusan karno, waa in xumaantii naga dhacday aan ku soo laaban karno. awalam nucamirkum maa yatadakaru fiihi man tadakkar. muxaqiqiinta gobol baa waxay yidhaahdeen awalam nucamirkum waxaa loola jeedaa 18 sano, ee ma aha 100 iyo 120 ninka markaa gaara. 18 sana, 18 sana loola jeedaa. qolaa tiri waa 40, 60 qolaa gaarsiisay. say noqotaba awalam nucamirkum maa yatadakaru fiihi man tadakkar. war nin waana qaadan kara, wuxuu ku waana qaata mayaana la siinin. laakiin waxaan ku dhammaynay cayaar, waxaan ku dhammaynay dariiq istaag, waxaan ku dhammaynay fisqi, waxaan ku dhammaynay ciyaar iyo waxaan qiimo lahayn. cimriga waa laysi su'aalayaa.
haddii laga faa'iidaystana janna la gelayaa haddii laga faa'iidaysan waayana ilaahay cadaab buu ugu talagalay dadka subxaana wa tacaala weli waxaan ku jirnay ahlu naarka si saani ah inaan naarta loo gelinaynin ee si dulli ah loo gelinayo muxuu ilaahay aayad kale ku yidhi alqiyaa fii jahannama qabtee ku tuura buu dhahay ilaah subxaana wa tacaala alqiyaa fii jahannama yaa lagu tuurayaa kulla kafaarin caniid mid kastoo kufriniman badnaa haddana madaxa kaa aawa dadkii la yidhi salaada tukada ma adigaa nagu leh ku jawaabay caniid madax adayg aawa dadkii la yidhi war ilaahay ka cabsada ilaahay maad naga xigtaa dadkii ku jawaabay aaway qabta buu leeyahay ilaahay alqiyaa fii jahannama kulla kafaarin caniid mannaacin lilkhayr khayr mancin badnaa haddana xadgudub badnaa haddana muriib ahaa oo shaki badnaa الذي جعل مع الله إلها آخر كإلهي معيسى إله كلا سميي أو شركي سميي أو إلهي كليجي كفل نامواي أو ربي إلهي الرحمن أفكي سلقواي أو قبور كجرة وح إلهي غيرك وعررينا الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد عذابك أذكر ذا بوير إلى سبحانه وتعالى cadaabka kiisa ugu xanuunka badan markaa ku tuura si saxan ah oo wanaagsan oo soo dhaweyn ah maba jirto maamuus ah waa la gana waa la tuura ilaahay aayad kale muxuu ku tilmaamay yawma yusxabuuna fi nnaari calaa wujuuhihim waa la jiidaya gobolna inta malaa'igta silsiladaha loo dhibay ay haystaan yuu ilaahay tilmaamay uu yidhi maalin yawma yusxabuuna maalin lagu jiidayo naarta calaa wujuuhihim maxaa loo dhahayaa duuquu masa saqara taabashadeeda dhadhamiya aayad kale maxay ahayd yucrafu almujrimuuna bisiimaahum fayu'khadu biاlnawaasi wاlaqdaam waa la aqoonsanaa mujrimiinta mama la su'aalayo sida aayadda ka horaysay ee tilmaantay fa yowmaidin laa yus'alu can danbihi insun walaa jaan la weydiin maayo sababtu maxay tahay looma baahnaba yucrafu almujrimuuna bisiimaahum calaamadaha lagu aqoonsanaa buu yidhi ilaahay fayuuqadu binnawaasi foodaa laga soo qabanayaa iyo walaqdaam mufasiriinta qaar baa waxay dhaheen waxaa loola jeedaa inta fooda laga qabto yaa sada gadaal loo soo jebinayaa markaasaa gomadda lagu xiraa iyo cirbaha markaasaa naarta lagu tuurayaa buu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala waciyaadu billaah walaalayaal xaaladdu xaalad sahlan ma aha ahlu naarka maalinta meesha ay arkaan ahlu naarka waa maalinta ilaahay uu ku tilmaamay mil'u lardi dahab haddii la siiyo arlada mugeed waa adduunka oo dhan arla ilaahay abuuray mugi oo dahaba haddii la siiyo wallaahi meel ma dhiganaayo gabadhu meel ma dhiganaysa aroos ma u qaadanayso laakiin laftadoobi way isku furan lahaayeen buu yidhi ilaahay subxaana wa tacaala ilaa xadiis uu tilmaamay nebiga ahlu naar baa la keenayaa maalinta qiyaamo ilaah wuxuu ku odhanayaa haddaan ku siiyo arlada mugeed oo dahab ah cadaabka ma isaga furan lahayd haa buu leeyahay yaa rabbi mayuu ilaahay leeyahay arrintaa wax ka yar oo ka fudud ayaan kaa dalbaday wa anta calaa sulbi aadam adoo dhabarka aadam ku jira maxay ahayd inaad ii caabudood waxna ii shariigiyeen halahaa keliyaan kaa rabay buu ilaah yidhi subxaana wa tacaala in arla mugeed lagu siiyo maantoo dahab ah ood isku furato wax soconayaa ma aha wasiiqa aladiina kafaruu ilaa jahannama zumara waa la quminayaa jahannama ayaa loo quminayaa intii ilaahay beenisay oo awaamir ilaahay diiday wasiiqa aladiina kafaruu ilaa jahannama zumara xataa idaa jaa'uuha markay tagaan oo cadaabkii jahannama afkeeda ay joogaan oo meesha xaaladeedu ay tahay buu ilaahay yidhi futixat abwaabuhaa markaasaa albaabeedii loo furayaa malaa'igta meesha joogta way hadlaysaa waqaala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينظرونكم لقاء يومكم هذا ورمحا إذن كنا عيبا لليهي ميس الرسول إذن إيمان وروح ميشان إذن كجديga ما إذن إيمان ميا وروح إذن حتى نارا جرتي إسكا إلالية ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينظرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى هذا إليهن waynoo yimaadeen laakiin waxaan nagu dul rumowday ilaahay kelimadiisa subxaana wa tacaala sidaa miyaa xaaladda waa loo banaynayaa qiila dkhuluu abwaaba jahannama gala waayihi albaabaha jahannamada saasaa markaa loo odhanayaa waa dadka ahlu naarka ah soo dhoweyn ma laha marxabays ma laha way kala horhoreeyaan sida ilaahay tilmaamay subxaana wa tacaala haada
waina liلطaagiina la shara ma'aab طaagiinta waxay leeyihin waa dadka xadgudbay ma'aab iyo meel loo noqdo meesha u shar badan adduunkii dhibka badnaa bay joogeen maalin way gaajoodeen maalin way dhibtoodeen maalin dhibaatay galeen maalin way kurboodeen maalin way xanuunsadeen maalin way socon waayeen adduunkii saas ahaa intay ku dhammaysteen ayaa haddana ilaahay uu yidhi la shara ma'aab marjic xun ayaa markaa u sugnaaday la shara ma'aab maxay tahay jahannama yaslawnaha jahannamay gelayaan fabi'sa almihaad gogol aydaa u baasle haadaa falyaduuquuh xamiimun waghasaaq waxay meesha ku dhadhaminayaan xamiim waa biyo kulul ghasaaq waa dheecaanka ahlu naarka buu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala waayo hilibka waan aragnay marka la dubaa dheecaan baa ka baxa adigana hilibkaagii marka naarta la geliyo oo saa dheecaanka uga daataa ka kala cabaya kii kaa koreeyaad ka cabaysaa haadaa falyaduuquuh xamiimun waghasaaq wa aakharu min shaklihi aswaaj mid kalea jiro nooc kale ah oo noocyo ah cadaabyo kala duduwan ah xaaladaasuu ilaahay tilmaamaya subxaanaه wa tacaala mid kale ayaa jira waaakharu min shaklihi aswaaj marka ciidan ay lagu rido koox kalaa lagu tuurayaa haadaa fawjun muqtaximun macakum kuwani waa kuwo kalea la leeyahay waa idinla soo xidhiiriyeen naarta qaaluu laa marxaba bihim bay leeyihiin haadaa fawjun muqtaximun macakum laa marxaban bihim wax soo dhowaana uma sugnaanin inahum saaluu naar bay soo galeen maxaan ku soo dhowaynaa ma buskudaa la siiyaa ma sharaab baan ku soo dhowaynaa ma biyo qabooba looga soo qabtaa dukaamada waa maya wax marxab ah iyo soo dhowayn ma laha sababtu waxay tahay waxay yimaadeen naar qaaluu bal antum laa marxaba bikum way iscaynayaan idinka xataa wax soo dhowaasha idinma sugnaanin antum qadamtumuuhu lanaa idinkaa nooga soo hormaray فبئس القرار saasay markaa isleeyihiin xataa ilaahay aayad kale uu ku tilmaamay kulamaa dakhalat umma mar kastoo naarta ummad la geliyo oo koox la geliyo lacanat ukhtaha walaasheed bay lacnadaysaa war dullaha idinku dhacee maxaa meesha idin keenay war dulla idinkana idinku dhacee maxay xaaladu tahay way iska raaxaysan lahaayeenoo meeshii ay ku jireen oo naarta haddana waxay ku noqonaysaa mumla macnaha ciriiri saasay markaa ku ahaanaysaa markaasuu ilaah yidhi mar kasta oo jameeca lagu rido lacanat ukhtaha xataa daarakuu fiiha ilaa ay dhammaantood meesha ku wada haleelaan markaasaa kuwii la baadiyeeyey iyo kuwii wax baadiyey labadaba ay markaa isla hadlayaan haddaba walaalayaal cadaabkaasaa naga horeeya meeshaasuu ilaahay diyaariyey subxaana wa tacaala looma diyaarinin lacagta iyo fardaha iyo dameeraha iyo waxyaabaha kale jinni iyo insi baa loo diyaariyey jinni iyo insi haddii loo diyaariyey waxaa laga rabaa marka saacaddan wixii laga bilowdo firxad iyo orod naarta laga ordo cadaabka ilaahay laga gabado cadaabka ilaahay laga magan galo cadaabka ilaahay wasiilo kastoo ku gaarsiinaya inaad iska dayso maanta wax allaala wixii cadaabka ilaahay kaa badbaadinaya inaad markaa iska ilaaliso waa shay lagama maarmaan ah saacadda qiyaamo way imaanaysaa yaan la beeninin haddii la beeniyo waxyaabaha naarta lagu galay ka mid tahay bal kadabuu bisaaca وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا way beeniyeen saacadii qiyaamo inay jirtay ogaan waayeen waa u shaqayn waayeen camal fiican bay qaban waayeen diinta allay ka leexdeen saa darteed buu ilaah yidhi bal kadabuu bisaaca waactadna liman kadaba bisaacati saciira idaa ra'athum markay aragto naarta way farxaysaa maxay ku faraxsan tahay dadka u yimid maxay ku faraxsan tahay xusaadii maxay ku faraxsan tahay taariku salaad meeshaasay joogaan waa la isku xirxiray wax allaala wixii jilbaab ka tagoo dumar meeshaasay wada joogaan way isku xiran yihiin wax allaala wixii ahlu xan ahaa meeshaasay wada joogaan wax allaala wixii xaaraan xun ahaa saasaa loo kala xirxirayaa waayo ilaah baa odhanaya subxaanahu wa tacaala uxshuru aladiina dalamuu waaswaajahum anwaacdooda la soo kulmiya mar allaala markay naarta aragto xataa rasuulku wuxuu tilmaamay inay dadka ka soo daahday naartii oy ayadu iscuntay buu yidhi rasuulka sala allahu calayhi wasalam way iscuntay macnaa way dharartay way sugi weysay dumarkii diinta alla diiday iyo raggii diiday intay sugi weysaa ayada isku soo noqotay markaasay ilaahay la hadashay yaa rabbi akala bacdii bacdaa ilaahayow anaa iscunay bay tihi naartii rabbiyow anaa iscunay maxay sugaysay anagayna sugaysay war cusaad bay sugaysay war dadaaca alla diiday sugaysay war qof shirki iyo gaalnimo adduunka ku camay sugaysay war qof ilaahay waxid laga kari waayey sugaysay markaasay sugi weysay markaasay iscuntay naartii ilaahay laba neefsasho u baneeyey subxaanahu wa tacaala laba mar ama inay hawo qaadato
waa mar ay shitaha neefsatay mar seefka ay neefsato kuleelka daran arkaysaan waa jiilaalka oo ay soo neefsatay buu rasuulka sala allahu calayh wasalam baraf lagama helo magaalada maalinta waa dhibaato xaggee qofka lagu rida uu ka heli karaa laa yaduuquuna fiiha bardan walaa sharaaban qabow iyo wax la cabo labadaba malabuu dhahay ilaah subxaana wa tacaala ilaahu maxaadna siinaysaa ilaahay nooma kasta gelitaankeeda war qof walbow ka carar war qof walbow ilaahay ka magan gal war rasuulka waad u jeedda mixraabkuu gadaal oga soo baxay acuudu billaahi min annaar waa oraa'diisa ilaahu naar baan kaa magan galay rabbiyow cadaabka iga kori haddii meesha la galo qabow iyo sharaab la waayo maxaa la cabayaa ilaa xamiiman wagasaaqan biyo kulul iyo dheecaan naareed buu yidhi ilah subxaana wa tacaala labadaasaa meesha lagu cabaa war wax kale ma yaalo war raashin kale ma laha war sharaab kale ma laha war sadiid iyo qurun buu ilaahay aayad kale ku tilmaamay subxaana wa tacaala waxaa la cabsinayaa min maa'in sadiid biyo qurun ah yatajaracahu wuu kabanayaa walaa yakaadu yasiiquhu ma qurqurin karo sharaab fiican oo sonkor lagu daray oo baraf leh marka laguu keena saad u cabtaa ma jirta buu yidhi ilah subxaana wa tacaala meesha yatajaracahu waa dhunjinayaa tartiib ileen oonkiina waa hayaa xeraadkii waa hayaa naartii waa ku jiraa wax u soo gurmanaya ma laha xataa waxaa dhacaysa inay ahlu jannaha u qayliyaan oo ay dhahaan an afiiduu calayha min almaa war waa gubanaya biyo kor nooga soo daadiya an afiiduu calayna min almaa war biyana sii ahlu janne war maxaan ku jirna ma ogidin miya war ahlu jannay waa rafaadnay war ahlu jannay meesha meel fiican ma aha war ahlu jannay waad nimcaysateen an afiiduu calayna min almaa aw mima razaqakum allah maxaa loogu jawaabayaa ina allaha xaramahumaa cala alkaafiriin wallah adan carabka saarin baa la leeyahay imisaa laydin wacdinaya imisaa khayr laydiin sheegay war meequu mu'adin xaya cala asalaa xaya cala alfalaax idin lahaa oo dhinacaad aad u socoteen war meeqaa dad xaq iyo wanaag idiin sheegood orodeen ina allaha xaramahumaa ilaahay labadaa wuu ka xaaraantinimeeyey cala naarta dadka ku jira xaramahumaa cala alkaafiriin waa kaafiriinta naarta markaa ku jirtaa bacdami xaaladdu sidaa tahay walaalayaal hala dadaalo naartu waa meel noocaas ah naartu waa meel adag naartu waa meel dhib badan meelanta qiyaama intaysan naarta gelin ahlu naarka markay bannaanka qiyaamaha isugu yimaadaan oo meesha la wada taagan yahay ilaahay mar allaala markaad ay u baahdaan har iyo waxyaaba in la sii har baa loo tilmaamayaa ilaahay muxuu yidhi inطaliquu ilaa maa kuntum bihi tukadibuun ordaha aada wixii aad beeninayseen inطaliquu ilaa dillin hoos ku taga oo dii ثalaaثi shucab saddex qayb u saaxiiba buu dhahay ilah subxaana wa tacaala laa daliilin walaa yugnii min allahab har ma aha lahabkana ka deeqi maayo ilaahay aayad kale buu ku tilmaamay wadilin min yaxmuum waa har qaaca markay istaagaan meeshay kayrka heli lahaayeen qaac buu ku kixinayaaba waa min yaxmuum laa baaridin walaa kariim mana qaboobo mana fiicna buu dhahay ilaahay subxaana wa tacaala ahlu naar baa intaa iska leh ahlu naar buu ilaahay saa ugu talagelaya subxaana wa tacaala idan idaa ra'athum markay ka aragta min makaanin baciid samicuu lahaa tagayudan wa zafiir way qaylinaysaa naarta waxaa ka soo baxaya cod waxaa ka soo baxaya guux sababtu waxay tahay way soo istiqbaalinaysaa way soo dhowaynaysaa dadkeedii ayaa u yimid samicuu lahaa tagayudan wa zafiira waidaa ulquu minha makaanan dayiqan marka looga tuuro makaan ciriiri ah dacow hunaalika hubuuraa halaag bay u wacanayaan waa halaagsanay waa qaylinayaan buu yidhi ilah subxaana wa tacaala loo calool jilci maayo laa tadcu lyawma hubuuran waaxidan war hal halaag ha u wacanina buu ilah yidhi subxaana wa tacaala wadcuu hubuuran kaiira halaag badan u wacda war hadduu wax idiin taraayo war maalintaa hadduu halaag loo wacdo ay wax tarayso war maalintaa maalinay wax taraysa ma lahane laa tadcu lyawma hubuuran waaxidan wadcuu hubuuran kaiira wacda halaag fara badan buu ilah leeyahy subxaana wa tacaala qayla dhaamiya waxaad doontaan sheega waxaad doontaan sameeya maalintaa waa maalinta ilaahay uu yidhi wayowma yacadu الظaalimu calىa yadayhi maalinta adduunka hal gacan baa la qaniinaa markuu qofku qoomamaynaayo maalintaa labadu isugu darayaa yacadu الظaalimu calىa yaday yaquulu yaa laytani اtaqadtu maca rasuuli sabiila yaa waylata laytanii halaagaygii shalaytadaydee maxaan hebel saaxiib uga dhigtay maxaan fulaan u raacay meel xun buu ii waday asagaa iga celiya cishaa'iga asaa ii wacay oo meel daran oo baasa igey labada gacmood buu qaniina labada gacmood buu qaniinayaa buu yidhi ilaa subxaana wa tacaala wayowma yacadu الظaalimu calىa yaday yaquulu yaa laytani اtakhadtu maca arasuuli sabiila intaasoo dhan waxay wada tilmaamayaan ilaahay iyo rasuulkiisa jidkooda inay raaci lahaayeen waddo kale oo
lagu libaanayaa ma jiro waddo kaloo khayr iyo janno lagu gaaraa ma laha waa labadaa waddo markaasuu ilaah yidhi wuxuu odhanayaa halaagaygiiyow maxaan saaxiib hebel uga dhigtay laqad adallanii can idikri bacda id jaa'anii dikrigii wacdigii waanadii khayrkii qur'aankii tawxiidkii wixii dhan buu iga dhumiyey waqtigu ii yimid wa kaana ashayطaanu lilinsaani khaduulan shayطaanku insaanku waa khiyaanaa waa dhagrayaa waxuu kaaga dhigayaa wax kale war ha dukanin salaad ma fiicna ku dhihi maayo laakiin muxuu ku leeyahay war hadhow baad tukanaysaayo soo bax markaad soo laabato cishaa'i 6 sac gaarayna qof tukadaa maba jiraba wuu caajisayaa wuu seexanayaa waxyaabo kale mutaqaanaa gelayaa saa darteed shayطaanku kaaga dhigaa khaduul waa khiyaano badne ilaa ilaahay uu yidhi subxaanaه wa tacaala waman yacshu can dikri الraxmaan nuqayid lahu shayطaanan fahuwa lahu qariin qofkii ka jeesta raxmaanka dikrigiisa shayطaan baan la xiriirinaynaa qariin buu u noqonaa saaxiib ayuu u noqonayaa muxuu samaynayaa saaxiib fiican ma aha صaaxiib wanaagaaga ka talinaya ma aha wainahum layasuduunahum can الsabiil wayaxsabuuna anahum muhtaduun wuxuu ka leexinaa jidkii toosnaa markaasuu isku maleeya inuu hanuunsan yahay nin fiican nin khayr leh nin sharaf leh nin mataqaanaa khayr iyo wanaag ku socda wayaxsabuuna anahum muhtaduun xataa idaa jaaءuuna ilaa inuu yimaadaan buu yidhi ilaahay qaala yaa layt mar kasta halaag bay sheeganayaan mar kasta qoomamay u wacanayaan wuxuu odhanayaa halaagaygiiyow war shaydaanow maxaa dhacay war maanta waan halaagsamee ani iyo adiga maan kala fogaano xataa idaa jaa'ana qaala yaa layta baynii wa baynaka bucda almashriqayn weliba saaxiib dhow ma aha mid mataqaanaa cadceedda meeshay ka soo baxdo iyo meeshay u dhacda maan kala jirsano fa bi'sa alqariin wax lala saaxiiba adiga oo xune walan yanfacakum alyawm idin anfici maysa buu yidhi ilaahay id dalamtum annakum fi lcadaabi mushtarikuun cadaabkaad wadaagaysaan labadiinaba cadaabkaad gelaysaan buu dhahay ilaahay subxaanaه wa tacaala haddaba dadka ilaahay diiday subxaanaه wa tacaala jahannamadaa buu ilaahay ugu talagalay naartaasuu ilaahay ugu talagalay ilaahay asagoo mar kale noo tilmaamaya wuxuu yidhi jahannamadaa waliladiina kafaruu dadka kufriyey birabbihim cadaabu jahannam wa bi'sa almasiir idaa ulquu fiiha samicuu lahaa shahiiqan wahiya tafuur takaadu tamayazu waxay u dhowaatay jahannamo inay go'go'do min alghayb carro ay u qabta darteed ciilka ay noo qabtay u dhowaatay jahannamo inay la go'go'do buu ilahay leeyahy subxaana wa tacaala ciilku muxuu yahay ilaahay baa la caasiyey subxaana wa tacala maxay u caroon weysay ilaahay baa la caynaya subxaana wa tacaala maxay u caroon weysay risqigiisaa la cunayaa macaasina waa loo adeegsanayaa maxay jahannamo u caroon weysay markaasuu ilaahay tilmaamaya subxaana wa tacaala mar allaala markii jahannamo saa loogu tuuro idaa ulquu fiiha samicuu lahaa shahiiqan wahiya tafuur takaadu tamayazu min alghayd kulamaa ulqiya fiiha fawj mar kastoo jamiica lagu ridaba sa'alahum khasanatuha alam ya'tikum nadiir war miyuusan nadiir idin imaanin qaaluu balaa qad jaaءanaa nadiir waa noo yimid fakadabnaa waa beeninay waxaan dhahnay wuxuu ilaahay soo dejiyey ma jiraba halkay qoomamaynayaan maxay odhanayaan low kunnaa nasmacu aw nacqilu maa kunna fii asxaabi الsaciir wallaahi haddaan caqli lahaan lahayn oo diintan ku garaad qaadan lahayn oo dad amarka ilaahay fuliye aan noqon lahayn low kunnaa nasmacu aw nacqilu maa kunna fii asxaabi الsaciir waxay taraysa ma laha faاctarafuu bidanbihim fasuxqan liasxaabi الsaciir asxaabu الsaciir dheerayn iyo halaag baa u sugnaaday buu yidhi ilaahay subxaanaه wa tacaala dadka mujrimiinta ah cadaab jahannamo ayay leeyihiin wayna ku dhex waarayaan buu yidhi ilaahay subxaanaه wa tacaala ina almujrimiina fii cadaabi jahannama khaaliduun laa yufataru laga nusqaamin maayo meel qabow lagaaga furo iyo meel neecaw aad ka hesho iyo meel lagaaga raaxaynaya ma laha wahum fiihi mublisuun way ku dhex quusanayaan buu yidhi ilah subxaanaه wa tacaala markay galaan oo ay kuleelkii arkaan oo wax u gargaaray ay waayaan maalig bay la soo hadlayaan yaa maalig liyaqdi calaynaa rabbuk maaligow ilaahay noo toog ilaahay hana xukmiyo janno xataa marabni hana la dila bes geeri bay codsanayaan wallahi ahlu naarka xural cayntaa meesha ku jirta ee raaxada badan ahlu jannaha raashinka loo diyaariyey khamradaa saafidee la cabaayo naciimadaa ballaaran ninkii yidhi ka warrama ilaahayow idil keliya wax kala ma rabee wayaquulu lkaafiru yaa laytanii kuntu turaaban carro le maan ahaado ilaahu ciiddaas iga dhig buu leeyahay wax xataa aan raba ma laha xural caynna ma rabo jannana ma rabo mar un cadaabka ilaahayow iga khafiifi wanaadow yaa maalik liyaqdi calaynaa rabbuk rabbigaa hana xukmiyo noogu tag
adaa bal maanta bannaanka taagan oo ilaahay u dhow oo ilaahay nagala hadli karee liyaqdi calaynaa rabbuka 40 sano ka aamusnaana baa la yidhi jawaab buu u soo celinayaa jawaabtuu u soo celinaya 40 baa ha ka aamusnaadee albaabada loo ballaqee soo bax la dhaha waxbay anfici lahayd qaala inakum maakithuuna meeshaad ku waaraysaan ood joogaysaan ood ku sugnaanaysaan baa loogu jawaabayaa walaalayaal ahlunaarka ahlunaar wamaa adraakum annaar naartu waa dhib badan tahay naartaan aad wax ku karsanaysaan buu yidhi nebiga sala allahu calayhi wasalam waa naarta jahannamo 70 gobol ka mid ah oo laga keenay waa laga soo qaaday 70 ayadoo ah yaa qayb laga soo qaaday markaasaa idinka laydin keenay riwaayada baa waxay tilmaamaan in badad la soo marsiiyey saad idinka wax ugu karsataan waa naarta adduunka waa gobol ka mid ah 70 jusi oo naarta jahannamo ka mid ah maalinta qiyaamaha waxay dhaheen saxaabadu rasuulkii ilaahay oo tan baaba ku filanba haddiiba ahlu naarka 69 kale laga daayo midaan adduunkaaba haddiina la geliyo aan loo adkaysan karin foornada ma aragtay rootiga lagu dubo meesha dabka wax lagu kariyo afara'aytum an-naara allatii tuuruun war ka warrama dabkaad wax ku karsanaysaan buu dhahay ilaahay war dabkaad hurinaysaan ka warrama a antum ansha'tum shajarataha am naxnu almunshi'uun naxnu jacalnaaha tadkira waxaan uga dhignay dadka xusuusasho jahannamo lagu xasuusto wax kale looma keenin naxnu jacalnaaha tadkiratan wamataacan lilmuqwiin dadka musaafiriinta inay raaxa u noqoto markay dhexmoodaan inay isku kululeeyaan idinka inaad wax ku karsataan jahannamana aad ku xasuusataan xabad dab ah oo adduunka yaalla saa u qabo haddii saas aad u jajabisay waxba kaa tari weyso jahannamo wax kaa tari maysay waxaad doonta samee laakiin haddaad tuurto ood cararto ood qayliso oo gacantu isbeddesho oo dhib yimaado oo rafaadku uu bato oo daawo laguu doono jahannamaa jirtay haddaba iska ilaali tan baa ku filan bay dhaheen saxaabada rasuulku wuxuu yidhi intii kalaa lagu soo darayaa maalinta qiyaamana midii adduunka inta la soo celiyaa dhammaan kaafiriinta lagu cadaabayaa gaaladaasaa loogu cadaabayaa ilaa ilaahay uu yidhi xaaladoodaa sidaa ah innakum maakithuun idinka waad ku dhex waaraysaan oo meesha ayaad joogaysaan meesha ayaad ku jiraysaan cibaaduraxmaan caqligooda waxaa ka mid ah waaladiina yaquuluuna rabbana sarif cannaa cadaaba jahannama ina cadaabaha kaana garaama way garteen inuu cadaab jiro way garteen in layscadaabaayo way ogaadeen in layscadaabayo camal fiican bay qabteen way ku kaaftoomi waayeen ilaahay bay toos u toogeen subxaana wa tacaala rabbana asrif cannaa cadaaba jahannama ilaahu cadaabka jahannama naga leexi ina cadaabaha kaana garaama cadaabkeeda waa daa'im cadaabkeeda waa mid mustaqira cadaabkeeda waa midaan kala go' lahayn cadaabkeeda waa mid joogto ah cadaabkeeda waa mid hal mar xataa aan lagu dhayn maanta bannaanka u baxa wax yaroo habaa soo qaata ma jirto sida ilaahay tilmaamay subxaanahu wa tacaala haddaba cadaabka waaladiisa waa sidaa naartu saasay u dhib badan tahay naartu dhibaatadaa bay leedahay taa waa cibaaduraxmaan yaa soo haray dadka ululalbaabka ah ululalbaab maxay leeyihiin ayagana rabbanaa inaka man tudkhil الnaara faqad aqzaytahu wamaa lilظaalimiina min ansaar ilaahayow qofkaad naar geliso waad hoojisay waa duloobay rafaad ayuu arkay dhaalimiintana wax u gargaaraa markaa ma jiro dhaalimiinta wax u nasrinayaa ma laha dhaalimiinta wax u qabanayaa ma laha dhaalimiinta wax u maciinaa ma laha ee qofka muslimkow dadaal ilaahayna subxaanahu wa tacaala uga baq maanta intaan adduunka joognay nala gudboon tahay jidka fiican inaan marno wallaahi maanta intaan adduunka joognay nala fiican tahay dadka ahlu naarkaa waddadooda inaan ka leexano qiyaamo markay tagaan waxay odhanayaan hal min sabiil khuruuj iyo noqosho wadda ma u helaynaa meel aan ku laabano ma helaynaa wahum yastariquuna fiiha rabbana akhrijnaa ilaahu naga bixi wayaagaa iyo khayrka iyo macnaha dhibaatadan iyo rafaadkan iyo naartan aan ku jirno mar allaala marka maalinta qiyaamo buunka la yeeriyo falaa ansaaba baynahum yowmaidin walaa yatasaa'aluun nasab sheegasho ma jiro wax is-su'aalahna markaa ma laha waa laismiisaamayaa miisaan baa lagu kala baxayaa faman haqulat mawaasiinuhu fa ulaa'ika hum lmuflixuun miisaankaagii xasanaadka ma cuslaaday khayr badan ma lagaa helay ilaahay ma ka cadsatay salaadaadii ma hagaagtay qof fiican ma noqotay carabkaagii adinkaagii ma ilaalisay muslimiinta dhibka ma ka daysay khayrkii wanaagga ma ku socotay hum lmuflixuun
yaa soo qaadanay waman khafad mawaasiinuhu qofka miisaankiisa xasanaadka khafiifo faulaa'ika aladiina khasiruu anfusahum fii jahannama khaaliduun saasaa loo kala baxayaa buu yidhi ilah subxaana wa tacaala talfaxu wujuuhahum annaar wejiyaalkooda naartaa feenanaysa way cunaysaa buu dhaha ilah subxaana wa tacaala wahum fiiha kaalixuun meeshaasay ku dandaran yihiin ay dhibaato ku haysataa oo mashaakil ay ku jiraan cid u og ma laha cid u soo maciinaysa ma laha wahum fiiha kaalixuun su'aal baa la weydiinayaa alam takun aayaatii tutla calaykum fakuntum biha tukadibuun aayaadkaygii ma laydinku kor aqriyey oo ma beeniseen jawaabtu maxay noqonaysaa rabbanaa halabat calayna shiqawatuna ilaahayow shiqwadeenna iyo madax adeegeenna iyo kibirkeena naga qaalib noqday waa sax waana lagu aqriyey waana loo sheegay laakiin rabbanaa halabat calayna shiqwatuna wakunna qowman daaliin rabbanaa akhrijnaa minha ilaahayow naga bixi fain cudnaa fainaa aalimuun haddaan u noqono mar dambe anagaa aalimiin ahe mar bannaanka nageey ilaahayow naga bixi fain cudnaa fainaa aalimuun jawaabta ilaah maxay noqonaysaa ikhsa'uu fiiha walaa tukallimuun hoos gala naarta mar dambe hayla hadlina buu ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala ilahay haddii hadalkeena diida yaa nala hadlaaya ilaahay hadduu noo naxariisan waay yaa naxariisna siinaaya war ilaahay jannadiisa haddaan ka qadno yaa janno leh oo jannona siin kara war cadaabka haddaan galna yaa naga soo saari karoon ilaahay ahayn subxaana wa tacaala maxaa dhacay caasiyitaanka maxaa diidmada ilaahay kelifay subxaana wa tacaala war ummaddii maanta maxay uga ordayaan ilaahay qur'aankiisa iyo diinkiisa iyo amarkiisa iyo masaajidadiisa iyo meelaha khayrka badanee ilaahay jannada in lagu helaayo oo ku tilmaamay maxaa ku badnaysiiye dadka goobaha xumaanta famaa asbarahum cala annaar naarta maxaa ku sabar badnaysiiyey ayuu yidhi ilaahay subxaana wa tacaala manaaraa loo safri karaa manaara ah meel loo sabro manaara ah meel loo dulqaato oo la dhex joogo xaaladdu waa maya jawaabtu waa maya bacdamay sidaa tahay walaalayaal khayrka iyo wanaagga ha lagu dadaalo daacada ilaahayna aad ha loo badiyo naartaa ayaa la ii furay buu yidhi rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxaan arkay inay ku jireen ama ay ugu badan yihiin dadka mutakabiriinta ee kibirka badan dadka manaaca khayrka iyo waxyaabaha manciya waxaan ku arkay buu yidhi rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxa meesha ku jirayna inay dumarka ugu badnaayeen sala allahu calayhi wasalam maxaa dhacay waa cisyaanka faraha badan waa mukhaalafada diinta ay dhinac maraan waa waxyaabaha faraha badan ee lacanadae ka soo baxda waa ixsaanka iyo wanaagga ay qariyaan waa kufriga ay nimcada loo qabto ku kufriyaan waa arrimooyin fara badan ayuu ilaahay ku tilmaamayaa nebigiisa waa qaawanaanta ay wanaag magaalada ku maraan waa waxyaabaha ilaahay ka xaaraantilmay ay u badan yihiin sidaa darteed war dumarow dadaala ilaahiinana ka baqa buu yidhi nebiga intuu dul istaagay war istikfaarta badiya sadaqadana badiya buu yidhi rasuulka sala allahu calayhi wasalam saad uga badbaadaan cadaabka saad uga fakataan cadaabka sida ilaahay khayr iyo wanaag idiin siiyo idinkuna si fiican u dadaala dumarku qayb baa loogu talagalay diinta haddii layskaalmaysto oo walmu'minuuna waalmu'minaat bacduhum wliyaau bacd ya'muruuna bilmacruuf wayanhawna cani ilmunkar haddii la noqdo ilaahay wuxuu ku gebagabay ulaa'ika sayarxamuhum allah ilahay wuu u naxariista subxaana wa tacaala laakiin haddii la kala leexdo oo macruuf laisamri waayo oo munkar layska reebi waayo oo salaaddii la hagaajin waayo oo khayrkii wanaagga lagu dadaali waayo idan waxay noqonaysaa cadaabkaa ilaahay tilmaamaya in la galo cadaabkaa cadaab sahlan ma aha laakiin kii galaa arki doona cadaabkaa cadaab fudud ma aha wax layskuma furto xoolo ma jirto qabyaalad ma jirto eex ma laha malaa'igtu kuma taqaano ina adeernimo ma taqaanay way kaa saari lahayd ilaahay wuxuu tilmaamay subxaana wa tacaala saurhiquhu sacuuda dhagax dheer baa ku yaala markaad 70 sano soo socoto oo salka timaado haddana waxaa lagugu mashaqaynayaa inaad dhagaxaa korto markaad afka gaarta buu yidhi ilaahay kullamaa araaduu an yakhrujuu minha afkeedii baa timid waxaad damacsantahay inaad ka soo baxdo uciiduu fiiha waa lagu celiyaa walahum maqaamicun min xadiid garoomo bir ah oo naar ah ayay wataan buu yidhi ilah subxaana wa tacaala walahum maqaamicun min xadiid kullamaa araaduu an yukhrijuu minha min gam mar kastay damcaan inay ka soo baxaan ee murugtii ka badatay uciiduu fiiha waa lagu celinayaa maxaa loo odhanaya waduuquu cadaab xaggee u socotay dhadhamiya cadaabka gala cadaabka dhadhamiya
warbu marka hore cadaabka gala saasuu ilah leeyahy subxaanaه wa tacaala ilaa ilaahay uu tilmaamay ina shajarata الzaquum طacaamu اlafiim kalmuhli yagli fi اlbuطuun geedka shajaratu الzaquum la yidhaahdo waa dadka dembiilayaasha cuntadooda waa طacaamu اlafiim waa gufar oo kale waa naxaas oo kale kalmuhli oo yagli fi اlbuطuun calooshuu ku karkarayaa ka galyi اlxamiim biyo inta kululaaday aad soo qaaday haddana dabka aad saartay isla markaa saaraysu isgedgedinayaa saasoo kale ugu ruxmayaa buu yidhi ilah subxaanaه wa tacaala ka galyi اlxamiim khuduuhu faactiluuhu ilaa sawaaءi اljaxiim qabtoo jiida ilaa jaxiimo buu ilah leeyahay markaad geysaan uma subuu fawqa ra'sihi min cadaabi اlxamiim biyaha kulul iyo cadaabka kulul madaxa uga shuba buu ilahay leeyahy subxaanaه wa tacaala madaxa xumaan lagu fikray waa maskaxda madaxa waxaa lagu fikray wax kastoo xumaan ah madaxa waxaa lagula fikray adduun aakiraa laga jeediyey xumaantii baa la raacsiiyey saa darteed buu ilaah leeyahay biyaha kulul madaxa uga shuba markii looga shubaa loo odhanayaa duq dhadhami macnaha inaka anta alcasiiz kii casiiskaa soo ma ahayn kii sharafta lahaa ma ahayno kii mataqaanaa qiimaha badnaa oo intuu labisto meeshaasaa ugu tawaafay masaajidada hareeraheeda xumaantii waxyaabaha kale ku socda duuq dhadhami xaggee u socotaa saasaa marka ahlu naarka loo odhanayaa naartu waa naar walaalayaal jirhkeennana uma adkaysan karo naartu waa naar dhibaato badan ilaahay subxaanaه wa tacaala uu ku tilmaamay mar allaala marka ay ahlu naarka naarta galaan waxaa la cabsiinayaa biyo kulul buu ilaah yidhi faqataca waxaa go'go'aya amacaahum mindhicaradooda way soo go'go'ayaan way soo qubanayaan war waa laisbedelaa markay ku cuntaba ilaah waa ku samaynayaa mar kastoo maqaarkaagii jasadkaaga baaba'o badelnaahum juluudan hayraha kulamaa khabat zidnaahum saciira mar kastay hoos u dantay qaboobi rabto waa sii hurinaynaa buu yidhi ilaahay subxaanaه wa tacaala kulamaa khabat zidnakum saciiran markaa usii horinaynaa dadkii mu'miniinta jannay ku raaxaysanayaan walaalayaal waxay cabayaan maa laa caynun ra'at walaa udunun samicat walaa khaطra calىa qalbi bashar xuralcayn baa dhinacyada ka wada fadhisa way tamatucayaan way raaxaysanayaan way sheekaysanayaan khayr iyo wanaag baa ku jira geeriyoon maayaan gaboobi maayaan bukan maayaan duq noqon maayaan khayrka iyo wanaaggaasay ku jiraan ahlu naar meeshaasay ku qaylinayaan walaalayaal cadaabkaasaa cunta u ah shajaratu zaquum baa raashin u ah jirkooda go'ga iyo soo samayn bay markaa ku jiraan xataa ahlu naarka cala alaraa'iki ahlu jannaha cala alaraa'iki yanduruun way daawanayaan ahlu naarka sariir korkooday ka daawanayaan buu yidhi ilah subxaanaه wa tacaala adduunka markii la joogay min aladiina aamanuu yadxakuun kaafiriinta qosli jirta oo mu'minkaa lagu qosli jiray shacaar nebi marka lagu arko sunno nebi marka lagu arko waa lagu qosqosli jiray waxyaabo kaley samayn jireen waidaa maruu bihim yatagaamazuun waida inqalabuu ilaa ahlihim inqalabuu fakihiin markay guryahooda aadaan way ku raaxaysan jireen saan u galnay ma u jeedaa qamiiskii gaabnaa u wataa lagu luxayn jiray oo lagula qosqosli jiray garkii nebigu uu kaga daydaa lagula qosqosli jiray wax walba oo salaad ah oo khayr ah oo cibaadaad ah oo diin ilaahay saan u galnay fiiri bay dhihi jireen markay u noqdaan eheladooda waida inqalabuu ilaa ahlihim inqalabuu fakihiin وإذا رأهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا ما أنت صومها soo qiyaamo ma la joogo soo jannadii kuma jiraan falyawma aladiina aamanuu min alkufaari yadxakuun gaaladii ku qosqoslayaan buu yidhi ilah subxaanaه wa tacaala sida loo cadaabayna cala alaraa'iki yanduruun sariiray ka daawanayaan sow laguma abaalmarin kaafiriinta waxay sameeyeen mufasiriinta qaar baa waxay dhaheen ahlu naarka inta loo yidhaahdo soo baxa hal mar intay soo ordaan ba albaabka qab lagu siinayaa markaasay muslimiinta hal mar ku qoslayaan falyawma aladiina aamanuu min alkufaari yadxakuun gaaladii ku qoslayaan maanta oohinta aan badino cibaadadana aan badino berri baanu qosli doonnaa haddii ilaah yidhahda subxaanaه wa tacaala ilaah xaq ayaan ka baryaa inuu xaqana waafajiyo naartaa dhibka badanana ilaah jasadkeena ka ilaaliyo muslimiintao dhanna ilah waxaan uga baryayaa khayr iyo wanaag meel kastoo ay joogaan kii xanuunsanna caafimaad taam ah inuu ilaahay siiyaan ilahay ka rajaynaynaa keena baadiyaysanna ilaahay noo soo hanuuniyo masaajidada noo keeno keena hanuunsana inuu ilaahay hanuunka markaa kusii sugo wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh